haddii aan iskii baro horta magacayga waxaa la yiraahdaa Samira Cabdisaal Maxamed ku magac dheer Samira Xaraga Isuur waxaan ka mid ahay tartamayaasha tartan suugaayadka maanta waxaa laga sheekeynayay dhaqanka waxaan rabaa inaan halkan kaga faa'iideysto ama waqtigayga kaga qayb qaato inaan ka soo jeediyo halkan gabay magaciisa la yiraahdo dhaqankii doorsoomay dhaqankii doorsoomay wuxuu ka hadlayaa horta waxaa la yiri dadka Soomaaliyeed waxay dhoofiyaan xoolo dhufaanan maadaama ay dhoofiyaan xoolo dhufaanan ayagana waxaa loo soo dhoofiyaa aqoon dhufaanan maadaama loo soo dhoofiyaa aqoon dhufaanan waxaa hoos u dhacay hiddihii iyo diintii ummadda islaamka iyo waliba ummadda Soomaaliyeedba anoo taa ka hadlaya gabaygaana waliba magaciisa la yiraahdo dhaqankii doorsoomay wuxuu ku bilaabanayaa sida tan hooyaalay 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 hooye kuman madaxa daydaylan oo dilka dhigay fooda iyo kuman diyaanadii bartoo diirkii laga qaaday
intaasoo dayaca oo bulshada dib ugu aafowday marka waxa bariyaa marka ilaahay inaga samata bixiyo dhibaatada in haysata iyo heerka uu taagan yahay dhaqanka ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay eebow adadaino lagu durantaye eebow adadaino lagu durantaye danahayga adiga garto deeqa bixiyaye danahayga adiga garto deeqa bixiyaye dadka nala hagaajira bowdiday dhaqankooda dabibkooda adiga hayo dawada Soomaali dabibkooda adiga hayo dawada Soomaali dabka shidan hadee naga dulqaad durugtay taariikh dabka shidan hadee naga dulqaad durugtay taariikh intaasaan ku soo gabagabeynaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ma ogtahay in internetka shirkadda Golis ay ku keentay uu yahay internetka ugu xawaaraha sareeya dalka iyadoo macaamiisheeda u diyaarisay 3 fiber cable kaasoo gabi ahaanba meesha ka saaraya in marna aanu ka go'in internetku shirkadda Golis waxay diyaar kula tahay inay ku geliso gurigaaga xafiiskaaga iyo meheradahaaga kala duwan garaac 181 oo hadda dalbo internetka ha qabtira baahiyahaaga internet adduunkan aad kula xiriirtid mar walba